السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeenii koowaad ayuu la socdaa casharada maanta aan qaadan doono. runtii maanta waxaan qaadan doonaa sida loo sameeyo folder, how to create new folder, okay, iyo how to rename new folder, so iyo how to delete new folder iyo casharo kale. marka waxaan rabnaa inaan ka bilaabno cashirka maanta aan qaadan doono oo kamid ah how to create new folder, sida loo abuuro new folder. marka meeshaan oo banaan cidla ayaa imaanaya oo desktopka ah, waxaan leeyahay right click and then waxaan dooranayaa rename new ayaan dooranaya. marka cafwan new markaan doorto ayaa qaybtan geeska waxaa iga soo bixayso qaybtan oo ah qaybta markaas aniga u baahnaa inaan ka doorto. waxaan ka dooranayaa marka folder ayaan ka dooranayaa. marka oo ujeedaan folderkaas waan sameynay, kadib inta ayaan leenahay saas. hadda waxaan ku sameynay new folder ayaan ku sameynay. marka waxaan rabaa marka new folderka aan sameynay inaan magac u yeelno, how to rename. marka si magac u yeeli karnaa, waxaan imaanaynaa korkiisa ayaa imaanaynaa, waxaan ku leeyahay right click and then maxaan ka dooranaynaa meesha ay ku taalo renameka ayaan click siinaynaa and then magaca rabna ayaan u yeelna. waxaan dhihaynaa for example seda space school, okay, ama seda school inta la leeyahay. marka hadda maxaan bedelnay magacii oo new folderka ayaan bedelnay. marka waxaan u baahanahay marka in folderkii aan sameynay oo magaca u sameynay inaan delete gareyno ama aan tirtirno ama saxan. marka sidee ku delete gareyn karnaa? marka korkiisa ayaan right click ku siinaynaa and then maxaan dooranaynaa delete. wuxuu ku leeyahay marka are you sure you want to move the folder to recycle bin? ma doonaysaa inaad move gareyso folderkaani? marka yes, ha ujeedaan hadda meeshii folderka noo yaala waa may intuu aaday recycle binka ayuu aaday. marka okay, recycle binka markaan aan furo waxaa ii soo baxay intii wax aniga aan tuuray oo masaxa aw folderka ugu dambeeyay aw aniga aan sameynay aan tuurnay aw waa kana sayada. okay, marka inaad fahantaan marka sida folderka loo sameeyo, sida magac loo yeelo, waa kusoo celinayaa. waxaan leeyahay branch desktop ayaa right click siinayaa, waxaan dooranayaa new and then waxaan dooranayaa folder, kadib waxaan leeyahay enter. folderkii already waa samaystay. markaan rabo inaan magaca u yeelo, rename aan u sameeyo, korkiisa ayaa right click ku siinayaa and then waxaan dooranayaa rename, kadib magacaan rabo seda computer aan bixiyo enter. waa kaas. marka aan rabo inaad delete gareeyana, korkiisa ayaan waxaan leeyahay right click and then maxaan leeyahay delete. intaas waa ila fahantiin oo malena kulli insha Allah. iyo waxyaalihii kale oo muhiim ah ayaan soo gelin doonaa YouTube-ka insha Allah. waxaan rajeynaynaa in ardada ku xiran kanaalkan in ay aad ugu faa'iideysan doonaan barashada computer technology.